أنا مدلق بلاد أيام هل كان كم مغرى لبقليدي أنا لبادي سنة كشغيني أو سي لمن يساع أيام عالكيفوتي إنا بغض نبدأ حوشي كو بالدلوات وحاوية مامولكي قلمدوك أو ليش بلو كهر عن إسلامي بالدولة الفيرال كانوا حكاقبط ووحي هؤلاء يا رب نصوضح قلال ما دامت دولة لمصر ودقاب الوحي فيه أيها واحنا إسلامي بالدولة يحقوان كلاميين كلاعيك ما دام يجب هؤلاء بربوريين بحتى إيه إسحانيين كلاعيك بان صلاحة الرزكي وقتها أي يحوك بس وتقلن إلا ساعدها لتشوفه maanta ayay waxay maraysaa in odayaashii saxiixayaasha ahaa saxiixii laga qaaday in badan oo kamida oo kuwa kale la geeyey waxaa ku sii xigay in hadda ay soo isbaxday in 20 xildhibaan oo ahlu sunnada la siiyey garanay oo hadda ayaga waaba la magacaabay oo wax dad loo jegaayo noola muuqdaanay 69 kale oo liis ku qoran in la rabo qaawii bari in laga saxo odayaashii waa gartay ama aan laga saxiixin ayagoo saxiixin waa gartay marka inta aadan qaadan go'aankan ah inaad wilaayadii kala laabatay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee Soomaaliya dadkii aad ku wareejisay howlaha galmudug ma la hadashay arrimahan cabashada ay ku soo gaarayeen wax ma ka weydiisay intaad go'aanka qaadan waa weydiiyay mana rabin inay kala qayb galaan ma doonayaan laakiin arrinta ku dhameeyo waxa weeye waxay maraysaa arrinta in la rabo bariyo saad dambe in 69 xildhibaan oo hadda liis ku qoran ayagoo odayaashu saxiixin ama laga saxiixo xoog looga saxiixo ama si dadban looga saxiixo la faafiyaa la doonaya taasina suurtagal ma aha mid galmudug ku dhismaysana ma aha galmudug dhibaatada ugu weyn waxa weeye labadii sano la soo dhaafay dagaal xun ayaa lagu hayay dagaalkaas oo mar aad moodaysa inuu yahay mid diineed mar aad moodaysa inuu yahay dad danaystayaala ama dalaaliin ama dal kale meesha oo doonaya inay madaxweynaha iyagu leeyihiin iyo baarlamaan iyagu leeyihiin ka soo saartaan oo la og yahay oo ku habaaqaan oo sheegaanba haddeer intoodii badnaydba ay guursamareeb joogaan aad bay nasiib darro u tahay prime ministerkii dalka oo laga rabay cadaaladda iyo inuu ummadda wax u simayo inuu ummadda wax u qaybiyo inuu asagu personal inta fadhiisto noqdo guddigii khilaafaadka oo noqdo guddigii doorashooyinka oo noqdo decision makerka ee galmudug taasina suurtagal maaha legitimisiga aniga ayaa madaxweyne ka galmudug in wax aan dhisa mooyaane wax kale oo meesha ka socon karaana ma jirto ayagoo burbursan oo nabad la oo dhibaato oo kala maqan ayaan waxaan aniga gaaray inaan shaqadeydii qaar bixiyo waa gartay si galmudug u soo aruurto mid u noqdo midnimadii aan ka shaqaynay oo intaas aan ka soo shaqaynayay oo ayagoo lagu gacmaha la yaxayo aan ka shaqaynayay ilaahay wuxuu qadaray in dadkii qaadan waayeen dadka qaarkiis qaadan waayeen arrintaas oo ay u lageeni weyday ama xag diineed ha noqoto ama xag siyaasadeed oo ah waxa boobka ay rabaan inaanay u suurtagelin haddii arrintaas aniga iyo dad kale oo la mid meesha sii joogo وايه مسؤول كيسي وايه تابع انتقد اما ايه قعنا كلابتان وحيالها لغا اسقونا يجيدان oo galmudug annaga oo galmuduga iyo galmudugtii hore iyo ahlu sunna oo hadda aan maaragtay isu tagno iyo odayaasha iyo ogaasha iyo waxqabadka inaanu dhisano ayaan u baahana waayahay marka intaas ahayn waa baadil oo meesha ka soo baxaa laakiin liiska xildhibaan in la diyaariyo oo maalmaha soo aadan lagu dhawaaqaya ku sheegay taas waa wax loo geeyay waa ogaan doontaa hadda hadda weyn ma wada joogaan odayaasha tooda ku hadli kara wallahi ka ما يلاقي وأنا اللي يقان قوة لقى صاري ويجي وأنا واحد معقول معه كي معقول معه ولا صار ماشي إذاك يو أهل السنة إن مدة إسكت جنيدين أو ما ملكينا لأن دولة فدرال كالصومالية تبشرت كم وجنيسين دولة ويدين كوب حداي دم بيكوله الشيء أديكا أو ولاية واتكورة جسي واحد دم ما هنمركي يجوه رئيسه عدالة هاي دولة فدرال كالصومالية وانكلا لابت ولاية ومركي لبعض محا سؤال علنا يا رنتان marka hawlashadii hore weeye mid aan ku taaganahay ma aha horta markii hore ma aanan hirgelin sababtuna waxay ahayd inaan waxaan diidayay in meesha conflict iyo dhibaata ka dhacdo ma aanan helin aniga wax dhismaan baan doonayay
laakiin sida ku socdaan in ku dhismaayaan waaya madaxtooyada aad ku shaqeynayso waxay ku taalaa magaalada Dhuusamareeb hadda waxaad ku sugan tahay magaalada Gaalkacyo maxaadan u tagin magaaladii aad ku shaqeynaysay oo caasimadda Galmudug oo go'aankan aad kaga dhawaaqday Gaalkacyo aadan uga sheegin Dhuusamareeb waa xaaladeeda maanta Galmudugna Gaalkacyo lagu aasaasay Gaalkacyo joogaan waana isku mid Dhuusamareeb bariisa doortay kala laakiin aniga waxaan maaragtay aan ka cusleysanayaa waxaan doonayaa meesha ma rabo in kultasa ay noqoto ama dagaal iyo dhibaato meesha ka dhacdo ma rabo waxaan doonayaa waxayga inaan cadayso ilaa ay dowladda federaalka faraha kala baxdo Dhuusamareeb oo ay ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka dadban oo arrimaha gudaha ilaa ay ka tagaan meesha oo ay baneeyaan haddii kale conflict ay noqonaysaa meesha isku xaganayna mana doonaysaa waaya hadda dowladda federaalka Soomaaliya dhismaha maamulka gabagaba buu yahay qaar ka mid ah xildhibaanadii waa lagu dhawaaqay oo qaybtii ahlu sunna dadaalo kala socdo ra'iisul wasaariyaha ku sugan maxaadan u tagin magaaladii oo iyagu aadan ula kulmeen war sidaan wax ku socon maayaan xal kala keena inta aad Gaalkacyo ka hadleed dhageyso aniga Gaalkacyo ka hadlaya waana kula hadlay waraysiga fulin fadlaka waaya saas waxa weeye waa su'aal looga baahne waxa weeye aan Dhuusamareeb waxa weeye bariisa midaan doonatay kara waa gartay ayaa markay bilaato laakiin hadda hay'adkayga waxaan ka codsanayaa inay go'aan qaribin barigii dawladdu ama gaar ahaan ra'iisul wasaarigu taga magaalada Dhuusamareeb waa wada kulanteen oo waxaad ku kulanteen cadaado dabcan waxa jir in isfaham adiga iyo ra'iisul wasaaraha ama xukuumaddiisaba aad la gashay Muqdisho joogtay malis oran kara waxa jir heshiis hoose iyo arimo kale oo ay ku heshiiyeen dawladda iyo madaxweynaha taana looga baxay madaxweynuhu kadibna uu soo rogaal celiyay oo go'aanadii hore uu ka baxay adiga dhageyso warfaafadeedkii aniga iyaan samaynay khayr akhriso 22 bishii hore waxa 22 midkood akhriso waxay ahayd in annaga daadihino oo dhisno dowlad goboleedka wadda federaalka ay ku joogtay wixii nasarka sanadka ayaga ka baxay waa gartay ma jira in heshiis hoose aad gasheen wax heshiis aan galo kala ma jirto inta baan ku heshiinay aniga maadaama ay khilaafaad annaga iyo naga dhaxeeyay ahlu sunna markaan u dhiibay arrinta waxay annaga ahlu sunna ugu horeeyeen heshiisiya marka ka bacdan wax dhisano dawladdu ka baxeen ayaga la tooyay wadimeen waqtiga caadiga ah ee doorashada ama waqtigii xil madaxeedka madaxweynimada waa uu dhamaaday oo waxa tahay madaxweyne waqtigiisu dhamaaday laakiin ay xaq ka saaran tahay in doorasho uu ilaamiyo oo doorasho u daadihiyo dawladdu kaalin ay ku leedahay kaalinta dawladda maxaad ku diidan tahay dhageyso aniga su'aalo noocaas ay weydiinayna waxaan ka rabaa horta aniga maalintii la doortay waxay ahayd 3 May bay ahayd waa gartay ma garat 3 May afar sano inta xisaabisay dastuurka la akhrisid in waqtiga dhacay in kala baar markii lagu doortay waxaad dhameystiraysay muddo-xileedkii kaga dhigna Cabdikariin Xuseen Guule yaa ku sheegay waxa adiga khuraafaadka yaa ku sheegay dastuurka Galmudug buu ku qornaa ma ku qornaa xashalilla akhri waa la akhri waligaay inta aydan midoobin ahlu sunno saaxi waa maasan tahay warkayga joojiya waaya waa ku soo gabagabeynaya qaybtii dambe wareysigan soo gaarnay hadda dhismaha Galmudug maxaad xal u aragtaa Galmudug ana tagay annaga iyo ahlu sunnada iyo odayaasha aqoonyahanada waxay dhacday dhisayna iyo wasiirada annaga dhisayna dawladda federaalka faraha naga baxay doonay ahlu sunna har cad baad kala tagteen xagad isugu imaanaysan adiga yaa kuwii wata horiyaad dhageyso adiga dhageyso adar waqti iska dhaafiyay go warkan fadlan sheeg